Kormeeray gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamed Cawaale iyo sidoo kale gudoonka waxbarashada degmada Hobyo ee wasaaradda waxbarashada Galmudug Axmed Macalin Cismaan ay ku mareen deegaano badan oo ka tirsan bariga gobolka Mudug ayaa ku saabsanaa ku galida baahiyada Maxamed Cawaale gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo oo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed kula hadlay deegaanka Qalqaloocan oo hoostaga degmo xeebeedka Hobyo ayaa sheegay in halkaan ay ka jirto baahiyo la xiriira caafimaadka iyo waxbarashada isagoo baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Galmudug iyo hay'adaha samafalka ay ka caawiyaan deegaanka maaragtay Qalqaloocan runtii magaalo runtii aad u fiican ah oo dhaxbartanka Hobyo iyo gaalkacyo ku taal oo mar walba waan sii marno soo marno runtii baahiyo fara badan ayaa ka jira magaaladan Qalqaloocan oo ay kamid yihiin hay'adaha oo si dulmara hay'adaha dhamaantood oo maaragtay daawanayaan waxaan codsi ugu nahay inay soo maraan magaaladan ay maaragtay wixii deeqa oo binaadinimo ay wadaan nooc walba ay noqotaba ay la soo maraan deegaankan Qalqaloocan dowladda ayadana sidoo kale maamul goboleedka Galmudug ama dowladda federaalka waxaan rabnaa ilaahay idinkiisaan ka rajaynaynaa ayagana inay maaragtay wixii deeqa ay wixii horumarin haday noqoto caafimaad haday noqoto waxbarasho haday noqoto horumarin inay Qalqaloocan u taagan tahay alxamdulillah rabbil caalamiin hadda riigiya loo qoday oo biyo yeeshay ee baraaga iyo ku shaqeyn jirtay كمامولها أنا وحكي أقرأنا إنه ساعدتان إذا عدان وربحنا ده وجود بيننا أيام مرة البنا جعلنا هاي إن عد الله عدي وحكي قبنا Qalqaloocan أن كسر حين هدو إلى يرادو أحمد معلم عثمان قدوانك وحبرشة دجمة Hobyo وزارة وحبرشة Galmudug أي شيء إن وزارة هان يحوج سارة يان سيد حرمة وحبرشة وجهر قليلها Deegaanka Qalqaloocan وهوستagta degmo xeebeedka Hobyo وباهي وين dadku ay qabaan marka insha Allah waa Allah idin ka wasaaradda ahaana waxaan ku dadaalaynaa halkan sidii looga hirgelin lahaa waxbarasho loo dhisi lahaa facility ardayda wax ku baran lahaayeen iskuulkii insha Allah waa Allah idin Baashi Alxaashi raadiyaha TV qaranka Hobyo